Rayaan markaan arkay quruxdeeda iyo sida ay u qurux badan tahay iyo guriga ay degan tahay isma aanan lahayn mar qura ah ayaad u sheegi doontaa jacayl wayna kaa aqbali doontaa. Anigu dharka aan wato aad ayay u liitaan, iska daay inaan qadeeyo oo quraacda ayaa igu adag. qaybtii labaad ayaan gudagelaynaa qisadii aadka u xanuunka badneed Rayaan iyo Maxamed xigmaddiisu waxa uu qisadan ku soo koobay: haddii aan lacag heesa lahay waxaan noqon lahay boqorka jacaylka, laakiin waxaa i dishay lacag la'aanta i haysato. saaxiibtay waan jeclaay, ayadana been ayay ila jilaysay. nin Yurub ka imaaday ayayna iga aroostay. qaybtii labaad ayaanu gudagelaynaa. Maxamed waxa uu dhahay: maalin Arbaco ah ayaan u sheegtay jacaylkaygii. waxay dhahday Rayaan, waan ka soo fakarayaa, waqti isii. 2 maalin kadib waa ay ka soo fakartay. maalinkii Sabtiga ahaa iskuulkii markay imaaday waxay dhahday waan kaa aqbalay. aad ayaan ugu farxay, waxaana dhahay miiga hubtaa oo riyam amay kula tahay. markaas ayay dhahday maya, oo waxaa tahay wiil Soomaaliyeed oo xiriir ii soo bandhigtay, waana kaa aqbalay xiriirkaada. markaas ayuu dhahay aad ayaa u mahadsan tahay, hubaali waan ku jeclahay, waana ku jeclaan doonaa. mar walbana waxaad ii ahaa doontaa boqoradda aan haysto. asaga oo qalbigiisa aad u qiirooda ayuu dhahay: haddii riyo kula noqoto maxaa samee lahayd? haddaad weyso nolol nuucee ah ayaad ku noolaa doontaa? haddaad ku guulaysato hamigaada intuu gaari doonaa? su'aalahaas ayuu isweydiiyey. inkastoo Rayaan markeedii ay su'aalo qalbigeedii isweydiisay ay ka mid ahaayeen: haddii ninkaana ku adkaysid imtixaanka iyo qishka intee ka heli doontaa? maadaama Rayaan qoys hantile ay ka soo jeeday, dhanka waxbarashada markii loo eegana ee aad ugu liidatay. isbuucii 2 mar ayay iskuulka imaan jirtay, inta kalena waa ay gembi jirtay. Rayaan waxa ay isku dayday wax walba ay ugu dhoola cadday karto in ay u sameyso si imtixaanka natiijo qurux badan ay ugu keento. Rayaan iyo Maxamed jacaylkooda halkaas ayuu ka bilowday. jacaylka markii laga hadlaayana dhanka haasaawaha ama xiriirka hal qof ayaa inta badan juhdi iyo dadaal ku bixiyo. Maxamed mar walbo iyo saacad walba waxa uu wici jiray Rayaan, inkastoo xiisaha tirada badan ee jacaylka la isku naco. hadduusan daqiiqad wicin qalbigiisa waxaa soo gelayso in Rayaan uusan wicin. Rayaan marnaba kuma soo dhicin in Maxamed waqti ay siiso ama xitaa mararka qaar ay soo xasuusato. xitaa taleefankeeda hal mar kuma soo qaldoomo qadka assalaamu calaykum xataa kama soo dhahdo. asaga ayaa mar walba raadi jiray. dhibaatooyinka iyo hadallada jees-jeeska ee Maxamed mar walba uu maqlane aad ayuu ugu dulqaadi jiray kalaanka ugu dambeeyo ilaa iyada uu ka ogaado. halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii labaad. anigu haddaan lacag heesa lahay waxaan noqon lahay boqorka jacaylka, laakiin lacag ma haysto, waxaan noqday dhibane jacaylkiisa ku waayay lacag la'aan. halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. waxaa idiin soo gudbinayaa anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed, Mahad Socdaal. halkaa ka daawanaysiin waa barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. kunka waxyar ayaa nooga dhiman. adiga daawanaya muuqaalkan ayaana gaarsii karo.